بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وحن بلابنا إن شاء الله تعالى سيدي أن بلانتا كل هين كتاب كان مجيعيسا ليرهدو مبلده الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية. كتاب كان وحال هذا وجيز معناه هو كوبس لصو كوبي في شرح شرحات القواعد أساسك الفقهية فقهة وشيخ ينودق يا شيخنا شيخ موسى فقهة أساس كيسا قواعد بأوتالا قواعد أساسيات كاسبة وشرح يا شيخو وسيدا أي شريعة الإسلام كأوي متي وحنا ألفي دكتور عبد الكريم زيدان الله يرحمه إلهي ونحرسته سبحانه وتعالى. marka insha Allah ta'ala kitaabkan waxa ku qoran wax uun hal iyo boqol iyo hal qaacido baa ku dhigan waa dabcada ugu dambaysa. saas dabcadii hore waxa hayeen 100 qaacido, laakiin sheekhu wuxuu ku daray markii intuu dhiman ka hor Allah yarxamo aan sheegi doonaa meesha ku dhintay soo dhintay. wuxuu markaas sheekhaasi ku daray hal qaacido oo cusub oo idaa tacadara al-aslu yusaaru ila al-badal la yiraahdo. muqaddimatu tabca al-jadid halka ugu horeysa ku qoran tahay insha Allah, waa safxaadka ugu horeeya waxaa ku dhigan idaa tacadara al-aslu yusaaru ila al-badal. idaa tacadara al-aslu kitaabku xarakaad ma lamaha waa la yara daalis maxamed insha Allah. haddii la waayo haddii ay tacadur asalkii haddii la waayo waxaa loo bayri oo loo janjeersami bedelka asalka bedelkiisa baa loo jeersami. qaacidada ugu dambaysa sharxi doona insha Allah. marka qawaacidan waa wax cajiib oo arki doona insha Allah. nolosheenan u baahanayba wax badan oo su'aalo badan oo hadan la isku weydiiyo waxan maxalaalba maxarana wax badan baan kaga bogsanayna insha Allah ta'ala. yaana wuxuu ku sheegayaa salkii fiqiga sheekhu inoo akhrinay maanta oo dhan bariyaha noo akhriyo maxaa u salaa taas inoo akhrinay insha Allah ta'ala. okay, waxaan isla bilaabaynaa muqaddimadii maanta way hordhacday kitaabka intaanan bilaabin cilmigan ka yara sheekeenna insha Allah. cilmigan muxuu yahay intaan kitaabka isla bilaabin? sheekha kitaabka qoray baan wax inaga siinayaa. sheekha kitaabka qoray maxaa ku qoran? Dr. Cabdulkariim زيدان. دكتور عبد الكريم وعلماء عصري قوية وحنا يهي عراقي وي مجيس وحنا عبد الكريم زيدان ابن بيج. عبد الكريم زيدان هم باكو قرأ كتابك، لكن وحا أقدر ابنه بيج. علماء وين لبرتهم سألونا قارنو هوليوت أم برقع عيارة محوها kubadani kanada laga jecel yahay maxamed Cimaad rookiga magacadooda iyo inta uu qaaday iyo inta maashu ciyaaray iyo inta wax xafisanahay ninkan marka taariikhda niga sheekayade maxaan u barweynaa doonis insha Allah. marka Dr. Cabdulkariim Zaydan bin Bej amba Bahij labada waa dhada. wuxuu ku dhashay Baghdad caasimadda dalka Ciraaq amba caasimadii dawladda Cabbaasiyada. islaamka markay Cabbaasiyadu xukumayeen meeshii laga xukumayay waxay ahayd Baghdad. marka halkaas uu ku dhashay Allah yarxamo. goormuu dhashay? wuxuu dhashay 1920 iyo 1920 qarnigiina dhaafay uu dhashay. isagu wuxuu ku qoray buug uu qoray 1900 iyo waxaan dhashay 19 laakiin nin la yiraahdo دكتور لا يراهدو حسين الدلمي
oo ku sameeyey sheekha cilmigiisa doctora ku qaatay sheekhan buu dul fadhiisto cilmiga uu leeyahay buu ku qaatay wuxuu yidhi markaan aan u xaqiijiyey sheekhaas ma dhalan 1919 wuxuu dhashay 1921 sababtu waxay tahay buu yidhi markii ciraaq dowladdii xukumaysay marka ingiriiskuna uu joogay iyo dowladdii cusmaaniyadda oo waraaqadihii wax lagu qori jiray qofku markuu dhasho waraaqada looma soo saarin dhalashada waxaa loo soo saarayay isagoo iska 3 iyo 4 sano jira marka ninka ka shaqeeya meesha waraaqadaha laga bixinayo baa qofka intuu eega maskaxdiisa ku oranayay marka waa dhalatay marka arrimaha baa keenaya khilaafku yahay wuxuu aabahay baa qaaday agoon buu ahaa marka uu dhiman doonaa wuxuu geeyay buu ninkii maaragtay meesha laga soo saaray dhalashada uu fiiriyay ka wuxuu ninkani wuxuu dhashay 19 laakiin marka dib loo eegay 19 ma dhalan hijriyadii baa lagu eegay 21 buu dhashay Allah yarxamo sidaana waxaa yidhi sheekha Xuseen Ad-Daylami isaguna wuxuu yidhi 19 sheekhan tacliintiisu maxay ahayd baan wax ka warnaynaa sheekh asalkiisu wuxuu dhigan jiray wax ka bartay kulliyadii Ciraaq ku taallay ee lagu baran jiray xeerasha al-xuquuq hagar maxaa dhacdaa kulliyadda al-xuquuq luuga soo marnaa loo faculty yu wax ka bartay kulliyadda al-xuquuq Baghdad kadib Qaahiro tagay wuxuu galay معهد la yiraahdo معهد الشريعة الإسلامية oo raacsan جامعة القاهرة ليسانس buu ka qaatay waxa uu taqaaniin baccalaureate buu ka qaatay Baghdad sheekhu waa dhoofay wuxuu tagay Qaahira wuxuu galay jaamacadii Qaahira oo barga loo yaqaanay الملك فؤاد الأول الملك فؤادna waa boqorkii meeshaas xukumi jiray marka jaamacadaas buu galay معهد raacsanaa oo lagu dhigan jiray shariicada islaamka wuxuu ka qaatay magisterkii masterkii buu ka qaatay kadib sheekhu wuxuu galay jaamacada القاهرة nafteedu sii waday doctoraagii buu ka qaatay 1962 buu ayaa la siiyay shahaadada ugu sareysa oo ku qaatay shariicada islaamka wuxuuna ku qaatay kitaab wuxuu qoray aad u qiimo badan oo maanta ah reference adduunka jaamacadaha ayaa loo dhan jaamacadaha adduunka oo dhan buu yaalaa reer galbeed iyo reer bariba kitaabka waxaa dhahdaa أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام أو واحد من كذا توي كشاكين عقلي يران دراديت شيخ أمريكا محوكا هاللي دتك أن مسلم كأهين حق أي كل يهين دور الإسلام لكن دور الإسلام مصفر ديان لا بقى لوكالا صار دمي جوا محي ومواطن قال أن مسلم هين دمي بعد هذا مستأمن كنا وحويان وقف دبده كيميدي oo ku soo galay visa ku soo galay taashir ogolaashaha dawladda ku yimid meesha musta'min baa dhada marka ahkaamta labada qol ay leeyihiin dawladda islaamka dhexdeeda ayuu ka qoray kitaab 922 bug ah waa 922 bug kitaabkaas maxaa lagu siiyay sheekha marka kitaabka wuxuu ku helay wax dhada martabatu sharaf al-ula kitaabka waxa dhig waa in la daabaco jaamicadaha adduunka oo dhan la dhigo lagana dhigo reference markuu qoray ka sheekh waa kaas sheekha culimadiisu yahaayeen culimada ugu waaweyn culimada islaamka qarnigii 20aad iyo xir u noqday xagaa waa akaademiyadii waa cilmigii jaamacadda u soo dhiganay laakiin xirnimo yaaba sheekh uu xir buu noqday oo arday buu noqday iyo arday u noqday أمجد الزهاوي وعلماء وين العراق وحقول نقضي نجم الدين الواعد شيخ الولي محمد محمود الصواف شيخي صحوة حركات الإسلامية رقاق إسلامك وضنك العراق كسبين شيخ علي الخفيف فقيه وين فقهاء وين قرني لباطنات وضمين أبيه فقيه قرني لباطنات محمد أبو زهرة انت أصبح أرتب النقطة ولغها يا مجوه الله علمي يعني اوكي halkaas waa shuyuukhdiis waxaan imanaa sheekhan muxuu soo qabtay hawl inta uu noolaa ilaa kitaabkana dhigan ninkii la weeyaan weeran baran wuxuu yahay ko sheekhan wuxuu noqday macallinkii shariicada professor ustaad shariica qismiga xuquuqda jaamacada Baghdad markii koowaad haga uu shaqada ka qabtay inkastoo macallinimo u horeysay iyo qaadinimo iyo maaratay waxaas uu soo horeeyeen laakiin markii uu doctoraga soo qaatay wuxuu qabtay weeyaan labo haddana wuxuu noqday shariicada uu sii dhigay laakiin qismigii shariicada
kuliyadda qaanuunka lowga ayuu ka noqday maamule ugu dambeyn wuxuu noqday waxaa la siiyey laqab aan la siin dadka oo dhacdo ustaad mutamaris wax dhaa la siiyey waxay kana tahay macallinnimada ku tagay adduunka waddanka Baghdad 5 nin baa la siiyay bas 5 nin buu ku jiray nin physics-ka iyo nin cilmiga nuclear-ka ku xeel dheer iyo nin kale oo luqadaha aad ugu xeel dheer iyo nin ciidanka militariga aga ciidanka Maxamuud Shiid Khitaab oo rajay marka sheekha 5 nin buu ku jiray ee la siiyey macallinnimada ku tagay ku xeel dheeraaday ustaad mutamaris واللقب نادر جدا لا يعطى الا القليل في الجامعات dadka lama siiyo badi ustaad kursi ba qofka la siiya ustaadka kursiga dadka damana waa laga sii dalacaa sheekhan wuxuu qoray wax ka badan 50 buug 50 kitaab buu qoray oo intan kan ugu yar yahay kanaan haysano yaanaku aan soo eegnayna lillaah ma naga kara waxaan leenahay qaarkeen wuxuu qoray 50 kitaab oo kan ugu yar yahay كتبت أو قريكاس دكتوراه قاني شيء بقى كمية واحد كلام كمية كتاب ده المدخل لدراسة الشريعة قف كربين وشريعة برت الباب كجري والله قلت السنة حكومات جامعة هذا وهو قرأ كتابه بحي أصول الدعوة دعوة الإسلام كأصول شيء دوا محي لا تقول يمكن الداعي ويسكن نظام وسماه لكن أنت الداعي نقول جيت كي لقادي أصول الدعوة كتاب قرأ كتاب صدحاده عجيب وقرئ لهذا الفرد والدولة في الشريعة قفك هي دولته شريعة ما علاقة دحيال راسك حريركم ليه كتاب كان نيشيغ هو كتاب هذا كله بدك لو خطر روح قرئها المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم المفصل كان محوبعي وجيز كانوا كوي كان محوري مفصل او دغدغاي محو دغدغاي diraasada wuxuu dhigay ahkaamta haweenka iyo guriga muslimka buugaas imsad fili kitaabkaas waa 11 mujallad waa 11 mujalladkiiba 300 oo bug marka sheekha kitaabkaas oo qoray waxa lagu siiyay jaa'izad la yiraahdo Malik Faisal waxaana lagu tilmaamay inuu yahay afdalu kitaabkii ugu fadli badnaa ee uu qoro nin mujtahida 30 sano ugu dambeysay qarniga 20aad 30 sano ee ugu dambeysay qarniga 20aad okay kitaabka uu qoro xaalatu daruura fi shariica islaamiya xaalatu daruura waxa ka dhintahay waana soo la darara xadiiskii ma marinay wala dirara wixii daruura necessary wixii laga maarmeen xaaladkeega iyo shariicada ka qoray shariicada maxay ka qabtaa بس حالات باجرت يوكا قري كتاب وحو قري وفقيه وفرشده العقوبة في الشريعة شريعة الإسلام كوسده ودجسا حركة عقابته وحو قري كتاب كان لم يدر الوجيز في أصول الفقه أصول الفقه قواعد كاسنا وأصول الفقه أو كوبا وحو قري كان هيسنم وحو قري موقف الشريعة من الرق شريعة موقف كتاجنت هي أدونسيا يقرأ وهو قرأ كتاب به نظام القضاء في الإسلام إسلام كمحكمة ديسو نظام كيلا هذا إمساجر جرال المري قفكم مقبسان كرا لوير كو أحكام محولية قفكم بلا لوير هدون نقضي سير حسوس دفاعي وحيوات قانون الإسبات كسير لو قاري نظام كنا مقاري وحا عجيب وكقرأ كتاب حقا قال لو قبها يردو مسائل الرضاعة ناس نوجينته إسلام كفقيس نسنوجين ولي ما كفكرتين فقه ليه marka fiqh waa kitaab kitaabka 280 safxo 280 bog waa naas nuujinta okay xaalada kale sheekhan qoray waxa kamid ah buxuus cilmiyo jaamicadaha adduunyada lagu faafiyay oo waliba loo arkay inay yihiin baxsiyaal heer sare markii la faafinay waxa kamid ah kitaabka la yiraahdo isbaatul ahilla ama baxsi isbaatul ahilla wal marasid sidee inay bishu dhalatay loo isbaatin iyo ma lagu baari karaa bil dhalashada ya cilmiga cusub oo indhaha ma iska deyn karaa unduruuda ma iska deyn karaa oo si kale ba loo isbaatin karaa xisaab iyo cilmi ah baxsi buu ka qoray
علمي من إنك فايدة بدل إني لو قرأ كتاب أبو بحث وكبعي ديمقراطية ده إيه كقيب قال كمسلم وكقيب قال يو دور الشرع إيه إنه دورته أم إنه واحد دورته مركو كنوا ليه الدولة الإسلامية حكم كيك وامح ما هذا واتكلم ما حكم كيك واجبة ما سنة ما حرام با علمي بقول شيء أوكي كتاب كامركو قري بحث كتاب لو بدلي كدبنا وحو نقضي منهج كجامعة الإيمان إيه صنعاء إيه جامعة صنعاء كلية شريعة waxaa laga dhigay muqarrar lagu bartay cilmiga tabkaas wuxuu qoray assurance-ka aydiska aqdiga contract-kaas shariicadu maxay ka qabtaa wuxuu qoray awoodeyn gabadhu u leedahay inay ninka iska furto kitaabku ka qoray baxsi ah gabadhu islaamka dhexdiisa awoodeyn leedahay inay ninka furto nin furto ah xagoo mar li furfuradeeda bashar ma jirtay laakiin islaam ahaan buka hadlaya okay intaasi waxaan ka soo baxnay doctorkii amba sheekh Cabdikariim Zeydaan wuxuu dhintay 4 sano ka hor wuxuu ku dhintay magaalada Sanca oo ka ahaa macallin laba jaamacadood oo waaweyn jaamacadda weyn ee Sanca iyo jaamacadda oo Sheekh Sandani asaasay oo diinta lagu baranayo al-iimaan halkaasna wuxuu ka ahaa macallin wuxuu markaas sheekhaas صدح شيء بقى لو يقعني بقى علمي مركا ضلكي لا كل مي ندور محاضرات كده يستي لكن حكم برن لكن محاضرات ولا هي بعض يعني تجي waxa la yiri laba saddex shay ba dadku way ku sheegaan kow sheekh taqiyuha la kacabsi badan darajo wuxuu gaaray agtiisa qof bini aadan lagu xaman karin soo dadka ma xaman jirin ba laakiin haddaad qof agtiisa ku xamatid wuxuu koranay ka kac majliska ana ku soo noqon mar labaad lan takuna taaliban li aniga arday iman noqonaysid marka ila hadhihi daraja min al-ilm min al-iman wa taqwa ayuha arinta labaad lagu sheego waxa la dhigay habeen iyo dharaar waxbuu akhrinayay waxbuu qorayay wuxuu qoraa dadka Soomaaliya waxa intuu laakiin wax akhrinayay waxa noloshiisa wuxuu seexanay 3 ilaa 4 saacadood inta kale waxbuu qorayay waxna uu akhrinayay ummadda islaamka waxa uu ka tagay ma ay soo jeed maala yani soo jeed cilmi ku dhisabwa arinta afraad saddexaad baan u jeedaa wuxuu ahaa sheekhu daaci dadka muslimiinta adduunka oo jooga oo dhan ay kala tashadaan talaabooyinka ay ka qaadayaan nolosha wuxuu ahaa nin talooyinka sharciga bixiya uu dhaafay fatwo ila weydiiyay isaga tala sharciya marka dadka Yurub Mareykan jooga waddanada muslimka ah culimadu marka ay rabaan inay wax ka hortagaan wax diidaan dadka ay ra'yigooda intay weydiiyaan ra'yiga uu sheegana loo arkay inuu yahay muctabar sharciya oo culimada waaweyn baa warkaysta yakii arday noqonaya walidaalika maran waxaan dhageystay isagoo Sheekh Sandani sheekh dhado culimada waaweyn Yamana iyo maalin isagoo iskara fadhiyaan buuri qaal fulan hebel sidaa buuri qaal fulan hebel sidaa buuri markuu hasaa yiri buuri wa ana aqul buuri wa Sandani ana waxaan leeyahay buuri intuu soo eegay buuri waman anta hatta taqul Sandani buu kuli waman anta adu yaa tahay ila atraajid أنا وحنا لاهي وزجرد الشافعي أبو حنيفية تأدب مع الشريعة شريعة دي إذا بلا يلبون ولا تقل مرة أخرى وأنا أقول هأرم بيودي مركز مستواها سوجوي شيخ وينو سعودي يمكن الله يحرو الشيخ سلمان عودة هذا يا اللي يقول الشيخ سلمان عودة يا كسلامة يا أجن جوجا أنك سلمان عودة الشيخ وين بنو يسوق ما فكرنا يحول من هو الشيخ سلمان عودة سلمان عودة تيجي هيبولي كان هو الشيخ وين وماذا كتب محو قري كتبتو قري الشيخ وين يكون قري علمي قول دقي وأدوك كان محو يهي مركب بدي مكوب بلعبة بعده قولوا طالب العلم بودي طالب علم من ده بودي مركب سلمان عودة أكتس طالب علم من وضعنا وحنا قلنا طويل أبو علم markaasi waa sidaas yani ayuu ahaa ninkaas okay inta maxaan ka baxnay sheekheeni baan ka baxnay Allah yarxamo markuu dhintay marka dawladda Ciraaq waxa soo dirtay waxa kamid ah shaqooyinka soo qabtay wasiir buu noqday
marka wasiir wuxuu yidhi anuuna leeta shan baa wasiir adeecadda maan iska maqlay buuri wasiir 13 cisho kadibna wasiirnimadii waa laga yeeriyey buuri 13 cisho 13 maalmood iyaan wasiir ahaa buuri markaa buuri ayaantii horena waan naxay buuri ayaantii labaadna waxaan sujuuday buuri shukri anuuna xataa xafiiskii aan tegin oo weli fikiraya maad aqbashaa mise waa diidaa yaa laga joojiyey buuri okay intaas waxaan ka baxnay sheekh Allah yarxamahu dowladda Ciraaqna si fiican bay u aastay way soo doonatay dowladda cusub ee jirta iyo ummadda islaamka oo dhan xaramka laga tukaday Makiya Madiinaba iyo Masjidul Qudus iyo caalamul islaami oo dhan markuu dhintay waa lagu tukaday Allah yarxamahu rahmatan waasi'a annakuna xataa Jabuuti masaajid aan joogayna waan ku tukanay markaas intaas baa insha Allah ka baxayna taariikhda sheekh okay kitaabkan saan u soo bilowno okay صفحة الله صباحا مقدمة ku bilaabina صفحة سقالات اوكي رجع كتابك هيسو سمايستان مراد واحد رتبها اوكي انا سلاقنا وانا اخرنا تعريف القاعدة لغة واصطلاحا القاعدة في اللغة تعني الأساس وفي اصطلاح الفقهاء حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو أكثرها لتعرف أحكامها منه وفي الفقه الإسلامي جملة كبيرة من هذه القواعد التي تعتبر كل قاعدة منها ضابطا وجامعا لمسائل فقهية كثيرة اوكي انت انا خلينا معنا كذبنا تفصيلنا ان شاء الله تعالى محوية هي مرنا كتابك هو قواعد وقواعد فقهية 10 سنين ما هذا ما يعيش قواعد فقهية هذا قواعد واحدة هي وجمع قاعدة وجمعي جمع ومحي جمع ومحي سواء مع جمع ولا يا وضروي وحبضا ما هو مصطلح علمي قالوا به إن فهمتي وضروي مركا جمعوا وحو كسور جدا مفردك مفرد كنص ما شيخ محي بعد هذا هل بعد هذا احكي لي هل وضري هل اوكي فرنسيسكو سانجليه iyo بلوريال af ingiriis kama ku sheegay markaas okay muxuu ingiriis kuna plural iyo single waa sangili single iyo plural okay wasaas way marka qawaa'idku waa qawaa'id wixii oo dhan qawaa'id boqol iyo kow qaacido marka maxay noqotaa qawaa'id okay marka hagan sheekhu wuxuu taxriifinayaa al-qaa'ida halku qawaa'idkii wuxuu ku cishay asalkeedii muxuu ku cishay al-qaa'ida قاعدة محددة أفهان إياه محددة اصطلاحان علميان قاعدة مركوا شيخ محمد في اللغة تعني الأساس القاعدة في اللغة قاعدة أفكار محددة وأساس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أساس كير أساس كوسية لي ويكدل لسان مركوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل محمد كارني قاعدة اللغة محي وأساس قاعدة مركا والله قاعدة حسية هي قاعدة هذا قرآن بقى قاعدة حسية هي قاعدة معنوية قاعدة حسية وحوية نقولي من كلا دسة محل سمانية أساسك أوكي هل كابا اللغة سوقات معناها هنا إسلامكو أركان تسمى قواعد الإسلام إسلامك اللغة دول دسة بكرتها مركا قواعد أداد مغشاف عربي وحي وحي اللغة دول دسوية أوكي حاجة وافق عربية هل كيف عربي محلنا هو أساس أوكي قواعد محلنا تدور هذا هو أساس اصطلاح الفقهاء فقهاء maxay qaacido yaqaaniin xagan aad ugu fiirsadaya qaacido waxa loo yaqaanaa hukmun waa ku qoran meesha ko kulliyun labo yandabiqu ala jamii'i juz'iyatihi aw aksariha saddex
لتعرف أحكامه منه وانتهى تعريف كيف وأفرتها معناتها قاعدة وحوير وحكم صلاة تكو إلهي مكولي ما حكر شيء حكم ما حكر شيء واجبا كاس وجزء ما هو قيب يرهوس لكن قاعدة وحي كان هو حكم كلي oo wax badan ay hoos imanayaan marka xukun horta weyn amar iyo nahi baa ku jira laba maxaa iyo waxa ku jira ogolaasho iyo diidmo ogolaasho iyo diidmo iyo maxaa ku jira amar iyo nahi waa xukun hagaas laba waa maxay waa kulli waa arin guud arin gaar ma qaacidadu maxay taala arin guud baa taala oo marka maadka ama physics-ka dhiganaysiina marka cilmiga dheer maxaa lagu soo kobagabaya qaacido qaacidadaasi waxa hoos imanaya waxa dhan iyo hoos imanaya marka iyadu waa kulli waa formuladii weey marka qaacidadu waa formuladii marka maxaa oranay waa kulli okay yantabiqu waxa ay dul fadhiisani ala jamiici juz'iyatihi qaybiheegi oo dhanba iyada dul fadhiisano iyada laga soo guraya iyada aabaka ah iyada salwa ya okay litu'rafa ahkamuha ahkamtana جزئياتك أي لين منه بقى لقى قرنيا سأل الله قرنيا قاعد وحنا ما إنه صح يا خالد هاي قاعدة الله يا سمو فاهمين معناه هيك أوكي مرجع شيخ يقول وفي الفقه الإسلامي فقه الإسلام كان جملة كبيرة باجرة وفي الفقه الإسلامي فقه الإسلام كان دينة الإسلام كو وعقيدة يا شريعة ما حكى أصبح فقه أحكامته يا فقه قابل الله عليه وحوليها جملة كبيرة جملة وحبضان الأرورية ووين أو قواعد داسة التي تعتبر تاس أو الله أركي كل قاعدة والبابا منها أو قواعدها كمدة ضابضا يدا كوسو حرس علمي مفرنا وحفرنا وأفكا إن شاء فرن قفك بركز قال لسكو فريال لكن نك علمي قال مفرنا هذا الكيس هو محي وحد بوليه وقوق أيه الباب لقى meel la sii maro meel lagu dhamaado hadalkii baa dhamaanaya qadal furan uma baambad ma aha caalimku la furo la xidhan ma dawaabid buu leeyahay okay maxaa oranay marka waa daabid waana jaamic meel ay ku soo ururtayeen masaa'isha dhan ee fiqiga مثلا قاعده الامور بمقاصدها وانا كدون وانا كسرنا انما الاعمال بالنيات waxay galaysaa dahaarada waxay galaysaa salaada waxay galaysaa soonka waxay galaysaa zakada waxay galaysaa xajka waxay galaysaa dhaarta waxay galaysaa nadriga waxay dhan galaysaa waxaas oo dhan ay gashay qaacidadaasi waa maxay waa masaa'il fiqhiya kasiira laakiin maxay hoos ibatay hal qaacida min niyad okay so aga ma fahmin مثل علوم هالكاس اوكي نشأة هذا العلم شيخنا انه مش شيء موته وانه سو كوبي علميا يا كتابكم مقرن تاس يا انت من شيء انا عندي فائدين شيخنا انه مش شيء نشأة هذا الفقه علميا غير مؤسس من علم والمربو اساس ما ادونك هم دينا هذا ام بدون هذا علمي مربو ادونك يمادا علمي هذا قواعد فقهيه غير ادونك يمدي علمadu way baadheen waxay dhahdeen cilmigan wuxuu asaasmay markay diintu soo degtay diintu la socdo cilmigan oo quraankii iyo xadiiskiiba ba qawaacidahaba nabigu wuxuu alayhi salaam la darara wala dirar wa qaacida wuxuu rasuulku al yamiinu ala man ankara ninkii wax diida daar baa dul taala wal bayinatu ala al mudda'i kii wax sheegtana cadayn baa dul taala wa qaacida الحمد لله نبي صلى الله عليه وسلم إلى العلم جيبه أو كان إنه نبي قواعد كه الله سماه الله يون نبي جد بدي عمر بن الخطاب باه الله إمك شيخ وكيك هذه الحقوق سماه وحوري مقاطع الحقوق عند شروط مقاطع الحقوق عند شروط حق حقوقي شرط بلادك ودريتان ورأنا وحنا مليهد محاول قارتين إثبات كينا مركب محول مقاطع الحقوق عند الشروط قفكو هدوب الشرط يسيلي قبلك وراك ورن دي ساس كده اللي حوليس يا حوليسة ساس كده اللي قرأ قلبك ورا القانون لا يحمل المغفلين
القانون محدد لا يحمي المغفلين قانونكم ما الدفاع قفك مغفل كها يا وانا قاعده صحه المغفلين اوكي هيك سوقات قال له المغفلين هيك سوقات قفك هدو قري واي اطول ايه في القران ايه الدين ما هيك شيغانسا ان wax la qoro فليكتب كاتبه بالعدل حدو سفيه هنا واليمن الذي حدو سفيه هنا وليه وليgiisa u qori qof mataliya jira laakiin waxba ma qorano deyn baan kala qaadanayo 10 baan ninkan siiyo waxaan ku siiyay aqalkayga habeen buu yimidayo yaa kula joogay aniga isaga ilaahay baan hayno isaguna ku waxba ima dhiibino yaa kala saaraya ilaahay baa la sugtaa aakhira la sugtay taasi waa aakhiro laakiin adduunka maxaa loo baahan yahay waa ka ku sheegay Umar muxuu yiri maqaati'u al-huquuq 'inda shuruud حق حقوق شروط بقى ما حد كلا قرتين تاس بقى كلا بحيا اوكي marka maxaan oranay cilmigan maxaan oranay wuxuu la bilaabay diintu la bilaabay laakiin uu soo evolueyay uu tatawuray saddex marxaladood buu soo maray cilmigan marxaladda waxda marxalatu nashi abilowgiba waa marka islaamku soo degayba saabic culuska nabigu saabu hadlay saxaabadu saabu hadlayeen sawa loo hadlay اوكي مرحله waxaa marxalatu isdihaar marxaladii uu weynaaday wa tawassuc balaadana culumu yeeshay fuqaha yeeshay rag ba specific noqday specialist takhasus loogu imanay cilmigan oo laga daba hadlay marxalada saxana marxalatu istiqraar ama marxaladu cagaha dhigtay cago dhigtay saamika imika kala cago dhigtay cilmigan uu caga dhigtay hadeeto waxyaalada aan arki doono waxa kamid ah sheekhu inoo sheegay sheegi doonay culumadeenu ilaahay waxay dadaal bixiyeen waxaan idhi hogog bay faqeen xufar fikriya hogog iyo faqeen way faqeen kaydkii baa yaal halka hoose kaydkii bay ugu tageen gunta maxay markii tageen dahab yaa dheeman iyo fidda cilmiya way soo gureen xagee noo keena dushii okay iyo ku dagaalkaa bay galeen annaguna wixii dusha keenay maan eegi laanahay هنا إشكالية يكو نفتي ما كبحدي فرها قاي سهوق بنت وقارن الحمد لله أوكي صدق الأمر حلوض بصامر نيكي وجوه الرجال لكن كتاب كألف علمك كتاب كدقة علمك أوقر ناس حافظوا ده السعودية مسك حدا لجوه لكن إياه أبدلي كتاب إمام وينه حنفي هؤلاء رجلي أبو طاهر الدباسي لأن الله أبو هاي مسكين وين ما قبين يا ما عند قبين علمي قدنا مذهب أبي حنيفة أو دم أخريه وحو أبدلي يا فورميلو قواعد إمسا تضبيط من قاعده وحدنا علمي أبي حنيفة كل عليه تضبيط من قاعده وحفظ مسائش أبي حنيفة تضبيط قاعده وير مركز بو وقري وإن لا هبين كيبو مركو أقل كاس كحر يحفظ جري الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير سأسألني علماء دي ما مقاشير نكاسي هلاي علمي عصب أو علمي وقريو نبا ويمدو أنا هكا سو قريو وسو قرا فريستو سو ودلايما الأمور بمقاصدها يقريا وتكر وقريا شيخ أنا خدونا علمي ينو دميو ومركا شيغده كنا وكحديا ذلكنا وكقريا سو قريو حديا أيوه هنتي صادق وقرت إلا قرف الديو وخرج يا مجرم من المسجد كساري مركب أبو صاحب المسجد كيس أيان تهدي بدي يذكروا مقادم بلد إلا وقري لأنه حقوق التأليف بعد هذا قفك مؤلف كحقيسة وسرقة هو تقول وين إن قف علمي سيت حد يضوء الشقتين إن كاز مركب تابس كده أوكي مركب نيجي هو محارنة وأبو طاهر الدباسي الله يرحمه كدب حي مدينين لبات أبو عمر النصفي سنوى قرضاهم تضبية تمانكي قاعدو أمبو شرحي كاسي محمد سمي كاسي تضبية تمانكي قاعدو شيخ كاسي قريب أمبو شرحي صار شيخ ونوش على أمبو شرحي كدب أبو الحسن الكرخي بيبدأ سنوى عراقي وحنفي حنفي ده بالك بالوضع علميا أبو حسن الكرخي وحو قرأ كتابه بحي أصول الكرخي سووا حقي هرم حي تضبية تون سووا روحوا كريه تضبية صدق قاعد تضبية صدق يا تضبية قاعد
kadib waxaa yimid imaam dhada abu zayd addabuusi oo kitaabkii wuxuu qoray salku u dhigaya cilmiga wuxuu yihi ta'siisu nadar kitaab buu qoray ta'siisu maxay ka dhigan tahay qofka inuu wax eega doonayo muxuu ka dhaqaaqayaa asaaskii cilmi walba asaas buu leeyahay physicsku asaas buu leeyahay mathematicsku asaas buu leeyahay qaanuunku asaas buu leeyahay political science asaas buu leeyahay fiqiguna asaas buu leeyahay ta'siisun marka fiqigu waa maxay waa caalim gaaray darajada shtada wax eegaya kitaabkii ilaahay buu eegayaa adu kitaabkii ilaahay waad eegaysaa ajar ubad akhrinaysaa magaran laakiin faqiihu eegaya xukun buu ka soo saaraya ishiisu markay ku dhacdo faqiiha kitaabka maxaa ka soo baxaya xukun mas'alad baa ka soo baxaysa masaa'il baa ka soo baxaysa marka laakiin des markaad eegaysid maxaad ku eegtay cilmigii iyo u qoray kitaab ta'siisu nadar baa dhacda okay markii dambe waxaa yimiday sheekheenii weynaaye shaaficiga la dhahda alcizu ibnu cabdisalaam يا شيخ هذا يمد وحو قرأ كتاب بحي قواعد الأحكام في مصالح الأنام أحكام إلهي قواعد ديدو سيدا يقول جرته مصلحة بين آدك هي خلق صالح الأنام وحو إلهي أبو ري وحي يكون جرته مصلحة دودو قواعد الأحكام يا قرأ شيخ عز ابن عبد السلام عز ابن السلام الله يرحمه أوكي هل كان محانكو أراني أوائل من ألف سماها مرك كتاب الألف فيه شيخ عثمان هذا كتاب ألف يجد اسكو دينا ما كتاب ألف يجد كتاب شرع الألف دون أول من أمر كتاب الألف طريق بالراعة هذا طريق هذا منهج برا منهجية ميتودولوجي برا حب الراعة جرا علماء مرك كتاب قواعد الفقه قريان اسكو قريان واحد راعيان طريقة صدح طريقة بالراعان صدح طريقة بالراعان يا شيخ مختار الطريقة الأولى وحدها طريقة الأشباه والنظائر حدا طريقة الأشباه والنظائر أشباه إني أشباه بحي وحيسكو أجاج نظائرتنا وحيسكو دقمة مسألة بمسألة دي أردقانتو إيه لدونتان إيه وحي إسكو أج أوكي أم بس كلا وش أجاج نظائر أشباه حدا ومسائشة إسكاج أج وجيال كلا دول سيالة كلا دوان باب الطهارة كجرتها باب النكاح لكن مسائشة اسكواد اكتها نظائرتون واحد هذا ومسائشة اسكاقائك هل وجي دو اسكود اكتها لنا ما كلفة ما حوكال دحي مكا اشباه ايه النظائر اوكي وجيال بدن بس كاكتها ايه هل وجي بس كاكتها نيكان مركان اركو وحان موداو نيكي كلا والنظير وانا اركا ونو كي كلو من حسوستا لبا نبطانو مارتي توام عجيبه يا جرا ام بمساله دا ما اركا مساله بي حسوسيسا لميدا والنظير متشابه اسكو ايكا ارنتو وين اسكو ايكا او دكيسكاي halka iyo halka ومسائل الفقه قال سو غلو لو غريا ولا فقيا اوكي محمد الاشباه والنظائر كتب baa laga qoray marka magaca leh al-ashbah wan-nadha'ir waxa qoray ninka la oran jiray Suyuuti Sheikh Suyuuti maxay Sheikh Suyuuti yahay waa Shaafici waa ninkii qarnigii 9aad wuxuu yiri markuu soo sheegay mujaddidiinta waxa jadiidinaysa boqolkii sano nabigu wuxuu nin uu soo tiriyay hebel sideedii qarn uu soo tiriyay buu wa arju an akuna taasi' ninka 9aadna waa aniga buu ninka 9aadna وأنيقا نينك لا كدو دورني وأرجو أن أكون طاسع مركز الصيود نيكاس وها مركز الصيود وحقر كتاب بحي الأشباه والنظائر الأشباه والنظائر ابن النجيم الحنفي سنوى كتاب قال الأشباه والنظائر سبكي سنوى شافعي دي ووليد أوكي ابن الوكيل بس نجرة وشافعي هنا أخيرا علمي واحد نشجع وحال لوجه هذا مركي قدام بس الشافعي ده حنفية واحد وين بلعبين شافعي دون وين بسليين يا شافعي ما اسمه زي بس ليس اوكي قسمي هو ما حاجه محارني ما كان لقوري طريقه لمره وحي اسكو اجاج اسكو اشباه يا وحي اسكو دغما اوكي وطريقه ميثودولوجي للراعو يعني ميثودولوجي لباد الى الراعو ما عمر يا ويرا دغه لكن هو wax fiican ومقدمه هدو توسا ولا قبس كرنو waxa jilicsan ma jecel lahay wax adagna jeclaan insha Allah okay hadhownu hal dhageysa ajirada dhowr goor saddex goor
alfuruuq waa ka manhajada labaad maxay alfuruuq waa tii hore ka soo horjeedaa alfuruuq waxa kala taga een isku midka ahayn ayaa halkan laga daba tagayaa habkaan ayaa qaatay habkaana waxaa qaatay ninkii oo jira qaraafi oo maalikiyada ahaa kitaab buu qoray anwaaru lburuuq fi anwaa'i lfuruuq okay shaatibi isna maalikiya kitaab buu ka daba wuxuu yidhi isagu saxaya wuxuu yidhi idraaru shuruuq calaa anwaari lfuruuq adceed iyo iftiin baan ku sii daayey buu idraar ya kitaabkii furuuq indhahan ku furay buu khaladadii baan ka soo guray wanaagidiina waa ku biiriyey sameerkaasa waxaasi marka dariiqada labaad maxaa odhane waa furuuq kala kaxkaxayn mas'aladan lamid maaha mas'aladan waa usul fiqi tan waa qawaacid fiqiya mas'aladani waa juzi mas'aladani waa kulli isku khaldin saasuu ku leeyahay furuuq wuxuu koranaya nebigaa kelmad sheegay iminka nebigii baa hadlay xadiis buu ku hadlay wuxuu koranaya imaam qaraafi nebigu iminka u hadlay muxuu ahaa markuu hadlayay muxuu hadlay ma nebi buu ahaa mise qof caadi u ahaa maan qaadanaa wuxuu yidhi ma nebinimaan uga qaadanaa mise waxaan uga qaadanaa shaksi bud buu sitay budka man ilaahay baa qaadan ka yidhi mise sagaas ka jeclaa budka ma amar ilaah baa budka u sitay alcasaa okay nebigu imika sal slam cuntuu cunay cuntana uu diiday ma isagoo dee maxamed uuna sal slam qof reer maka u cunay mise isagoo nebiya xukun buu sameeyey nebigu ma qaadi buu ahaa mise mubaliq buu ahaa qaadi buu ahaa majaaj buu ahaayo ma xukun buu ridayay oo uu khaldami karaa ilan mise wuxuu ahaa nebi oo ilaahay baa usoo sheego saa wax kunkeeni mala socotaa hadda furuuq buu eegayaa xataa nebiga camaladii rasuulku kala saarsaarayaa annaka rasuulku inoo duuduuban yahinoo waan wada qaadanayna ilaa aan de xitaa dharkiiba moodnay inay diin tahay markaa magaran raggan fadhiya waa sheekow dharka bedelta igu hayo waxaan ku yidhi dharku waa dhar carbeede dhar diineed maaha inaa isku laaqin arrimaha hada la soco ma garan marka waa ina waxaas ugu dambayntii xabadda saddexaad ugu dambaysa maxay ashbaah wanadaa'ir alla sheeg markaa gaadho iyo alfuruuq allaba soo maaha ta saddexaadina maxaa dhahdaa alqawaacid kelmad dambe alqawaacid bay qaateen taasina waxaa ka mid ah ibnu rajab alxambali sheekhi loonayey oo xanaabisha wuxuu qoray alqawaacid kitaab ah alqawaacid saabuu ku tilmaamay shaaficiyaduna mid baa qoray la yidhaahdo alcallaa'i shaafici wuxuu qoray almajmuucu almadhab fi qawaacid almadhab qawaacidda madhabka shaafici oon ku soo ururiyey bul halkan almajmuucu almadhab fi qawaacid almadhab okay waxaan soo aragnay bay ahayd waxaan oranay culummadu waxay raaceen 3 dariiqadood markay kitaabka kutubta fiqiga qawaacidda qorayaan al-ashbaah wan-nadaa'ir iyo al-furuuq iyo al-qawaacid okay iyaga oo nidaamka raacsan aan soo sheegnay 3da iyo haddana dariiqad kala maraan markay wax qorayaan alxamdulilah dariiqada kale maraan waxa weeyaan 3 kama baxayaan iyagoo 3 ku dhex jira iyo hoos haddana dariiqad kale usii qaadanayaan jidka kale qaadayaan raacayaan hoos raacayaan waxaa la dhahdaa iyakuna 3 buu kala baxaa dariiqada xasbu al-ahmiya والشمول قاعدة كم مهمة يكون الرئيسيان مثلا الأمور بمقاصدها قاعدة لدعض وحي كدقان علماء دردان قاعدة كوباد محاو كدقان واتأقو مهمة وإنما الأعمال بالنيات بكو ثلاثة هاي واتو شافعي لسلوس العلم علمي مركز صدح لو قيبيو وقيب marka maadaama ahmiyada inta la leedahay saas 5 qaacido kala sheegi doono iyo haga hordhiga marka sidee u kala horeysiyaan qawaacida hadii lagu weydiyo waxay u kala horeysiyaan xasb al-ahmiya wa shumul xasb al-ahmiya importance ay qaacido leedahay iyo inta ay qaacido shumul ballad ay leedahay ko marka dariiqadaas zarkash sheekh ornay badruddin zarkash isaguna culimadina weyn ya raacay dariiqada labaad waxa dhada طريقة الترتيب الفقهي حسب الأبواب maxay raaceen sida fiqigu u yeelay raaceen wixii qawaacida ee soo galaya مثلا dalaaqi wada hoos galaya wixii qaacida ee soo hoos galaya مثلا bay'ay wada geeyay marka habkii fiqiga ee naqaanay ee aan soo dhiganay fiqiga cibaadaadka ugu horeeya haddana cibaadaadka salaada ugu horeysa soonka ku xiga soo saasmayn amba zakada soonka xajka
habkaa bay raacayaan abwaabtii fiqiga waa mid labaad midda saddexaad waxa weeyaan tartiibu alqawaacid calaa dikri alqawaacid biduuni tartiib ya calaa dikri alqawaacid biduuni tartiib waa dariiqaday rabaan dariiqadaasi maxay qawaaciddii baa la ratibi maxaa loo ratibi iyagoo la sheegaya qawaaciddii oon ratibnin haddana hada isku jira maaha iska hor imanaya maxay ka dhigtay ma ratibno sidii fiqigan ooma ratibno ya sida maaragtay abwaabtana uma ratibno marka muxuu u ratiban yahay marka qaacidadu sheekhu arkaya inuu qoro buu qori uu sharxi uun nidaamka waxa raaci doona marka uu sheekhu ka baxo shanta qaacida ugu horeysa sheekha masaas kitaabkana maanta dhigano wuxuu u ratiban yahay calaa dikri alqawaacid qawaacidii buu noo sheegay biduuni tartiib waxba inooma tartiibinayo qaacido buu noo soo qaaday qaacidada halka gashaan buu noo sheegay tu kale buu noo soo qaaday halka gashaan buu noo uma ratibna sidii fiqiga umana ratibna sidii ballaarhka iyo shumuuliyadda qolo kaloo cajiib a jirto iyaku si kale u ratibtay maxay ku ratibeen alif ba'da xuruuftii matalan xaraf alif wixii sheegay alumuur maqaasidii hodhan bi alif wixii ba sheegay ta tha jiim xa ilaa ya laga imanayo kullu qaacida alif ugu horeeyo halka hore marnayaan kullu qaacida ba ugu horeyso halka hore marnayaan afar maha afar nooc soo maydana waa xasba alahmiya washumuul ambortaska ay leedahay laba maxaan odhanay calaa abwaab alqaacida alfiqiya saddex waxaan odhanay alif ba'dii ugu dambeyntii maxaan dhahnay waa dikru alqaacida biduuni tartiib okay su-aal waxaa jirta maalintii doctor mukhtaar meesha uu keeno ah qawaacidda fiqiga iyo usul fiqiga maxaa u dhexeeya waa iska keen laaqmiga waa iska keen galayaan si aan u kala saarno furuuq baan ku leenahay markaa furuuqdii markaan sheegaynay marka usul fiqiga maxaa tahay qawaacid fiqigana maxaa tahay in isu kabiirin okay waxaa jira ilaa iyo 5 amba 6 oo u dhexeeya kow waxa u dhexeeya wax weeyaan usul fiqigu iyo qawaacid fiqigu waxay ka siman yihiin labaduba waa kulli kor bay joogaan laakiin usul fiqiga waxaa loo dhigay waa qawaacid loo dhigay sidii diinta looga soo saari lahaa xukun oo mujtahidka u baale usul fiqiga waa aaladii qofka mujtahidku isticmaalay waa hubkii u isticmaalay laakiin qawaacid fiqigu taas maaha qawaacid fiqigu maaha mujtahidka waxa u baahan qof kastoo muslima marka usul fiqiga iyo qaacidada fiqiga u dhaxay waa taa qaacida loo dhaxaysa qawaacidda usuuliga horta iyada la dejiyaa iyada fiqiga laga soo saaraa ma la soconaa qaacida usuuliga horta horeysa laakiin fiqigu kama horeeyo fiqigu iyadu ka dhashaa laakiin qaacidada fiqiga usuuliga waan garanay qaacida fiqiga ma hasaas qaacida fiqiga ka horeeya markaa baa la eegaa waxa dhacdaa waxaan halkeen hoos geynaa waxaan badan markaa baa la soo qaadaa meel hoos geshaa marka alfiqhu awalan suma alqaacida naxwaha ka soo sameyn naxwaha maqaacidooyinka horeeyay mise naxwaha horeeyay af Soomaaliya dadku way iska hadli jireen formula ma jirin laakiin marka daba la fikiro dhig sidan loo hadlayay iskama hadlayaan dadkii waxbay ku salaastahay salkii baa la doodoonay waka marka qaacidadu taati bacda al-istinbaat wala eega istiqraa waxa la akhrinaya marka qaacida la sameeyaa fiqiguna waa sida qawaacid cilmiga fiqiga waa iska socda baa war waxaan halkeen geynaa halkan bay tagaysaa taraaqana tagaysaa marka al-fiqhu awalan summa al-qaacida al-fiqhiyya laakiin qaacida usuuliga maxaa oranay al-usul awalan summa al-fiqhu fiqhi ma iman karo bila usul fiqhi ma iman karo مثلا aqiimu salaat ayada quraanka ilaahay kulay muxuu ka faadina ninka faqihi salaatu waa waajib maxaa lagu gartay al-amru lil wujub amarku muxuu yahay hada jar waajibnimo cadeeya inuu waajibnimo cadeeya inoo sheegay culimada usul fiqiga inoo sheegay haddaad amar aragtid horta waa waajib waa inuu jiro wax waajibnimo ka kaxeeya wax ka kaxeynaya kama jiro waa waajib weeyaan markuu ilaahay naga leeyahay subxaanahu wa tacaala waalidka oo samafala waa waajib wax ka kaxeynaya jira laakiin marka lagu dhahdo fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi xaggana waa amrun salaada markaad tukatiin suuqa gala oo kala baaha
ما أمر مسماها أمر ما هو مباح إن مباح تهي محل وقرته علماء أصول الفقه واحد هذين هدو أمر يماد بعد النهي يفيد الإباحة أمر هدو يماد نهي كذب مكر النهي وجرمه إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا نهي بجري بيع جوجي سوق كتقي بدل والنهي كاسي نهي كذب صلاة وأن تكني مسكين كسيف فردي مياه فانتشروا في الأرض انتشروا وحيرتك كي تكن لها مع دار كاغتك كي دلال كاغتك كي رار كراكتك كي اسكا دكيلوس كدكريته كي بلا هول محو قبنده هذا مسك فرديته لكن واجب ما فانتشروا ذا واجب ما السوق لا قلو ولا ياعو وذا واجب ما اوكي اني واجب هين يا نو شيغ اصول الفقه نو شيغ marka way sii taal qaacidu wala ka soo dhex saaray marka la fahmina alaataasi marka maxaa qawaacida fiqigu waxay ka dambeeyaan fiqiga qawaacida usuushuna maxaa waxay ka horeeyaan fiqiga tagalaad arada saddexaad ku ah qaacidada usuushu daa'iman waa kulli soomaalina qaacidatun hukmun kulliyun soomahin usuushu qaacidadu daa'iman waa kulli wax walba way soo gashataa لكن قاعدة فقه هو كل وان أرناه وعلى سبيل الأغلبية وقاعدة أغلبية وأغلبي وإنت بضم استثناء بإلى هذا وحكوا أصبح يجري إلا باجرته لكن أصول فقه إلا ماله قاعدة أصولها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقاعدة أصولها وحول أو واجب أو واجب كي ألو قاري كرين إلا حلقا ولا مرمى هنا واجب أوكي وواجب وين صلاة الجمعة إلا تكذا وواجب صلاة الجمعة متى كريو وأنا بس راعو أنا بس قاعد بواجب الغنيدي خدد عذر الهين سيدنا كادريه دولدنا أي كوسيس حق بسكي حق بسكي ناشت أوكي إنها بس راعديد ما نقولها واجب نقولها حكم وسيلة ده واجب نقولها ساك أتكون تجسد واجبك وحكوا أصبح كلام مجرو لكن حكمك كل جاء أصول الفقه إلا أطبو ليه تأثير مد قام سواء كلامها مد كلا وحويان قاعدة أصول جو وحلودي مجتهد كا قاعدة فقه كان وحلودي تذكرنا إمك مد بين السنة يا ما حال هذا قاعدة وحجة ثلاثة هذا براءة الأصل في الإنسان البراءة قفكو أصل كيس هو بلا ذنب أوكي سو قاعدة ما في قانون كراجل بيكون واسطاس أوكي الأصل في الأشياء محيط إباحة سو قاعدة ما هي تضرب أوكي نلاش عادي قال لك جيت كاسعتها كم قرنا أفرتنا كسعة كم قرنا سديتها كسعة كم قرنا بقول كسعة جيت كاسعتها أنتوا ترافيق جمو قرنا واحد كسعة بقول الأصل الإباحة لكن هذا ماشي كو قرن سيديتنا دافن واجب بيال الأصل إذا كبحضي إذن يكبحي نوشي عادي يساوي جرتها أوكي أقلك مركا قوري أنا قد جوجنو حيرب بان دجيننا waxaan dhahnay 12 11 qof inuu ka dambeyn okay sagaalkii barkii gabadh soo hoytay adaa xeerka dajiya 11 ka tir gabadh sagaalkii soo hoytay dambi meelay mise dambi male xeer ba ma sameeyba shanta habeen ma soo hoytay shanta subaxnimo dambi meelay xeer ma dhigin gurigu waa bila xeerba gurigu waa funduq Soomaaliya waa hotel wala soo noolay guriga ha marka كوي تمك شنتي قبل اسكو سويتي ما شنتو سويتي ما تقول كرسا لان قاعده مولين دي نولش دمك waxa nolosha waa ku shaqeynaysa qofka ayaa ka faa'iideysanaya laakiin dawaabida kale mushtaridka tani in ka faa'iideysanaya marka ugu dambeyn waxa jirta oo kaga baxayna insha Allah taala waan dhameynay muqadimadeena si fiican ugu dhamaatay waxaan ka baxaynaa talabaad ee kitaabka waxa ku qoran al farq bayna al qaa'ida al fiqhiyya wa al daabit al fiqhi maxaa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya muxuu yahay qaacidada fiqhiga ah iyo daabitka fiqhiga daabitku waa maxay daabitku waxa soo xidhaya soo celinaya farmalada waa faranki daabit waxa ka sameeyay daabit yeesho okay qaacidadu ma daabit ba mise ma daabit qaacidadu meel bay daabit ka tahay meel la daabit ka maaha
وكفرق شيخ إنه شيء وحول ليسوا والفرق فرق أدحية بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أما حي أن القاعدة قاعدة تجمع وحي أرورينيسا فروعا من أبواب شتى فروع فقهية أو البابي بدن كيمانيس باب بدن باب الطلاق سين شيءنا الأمور بقصيدة محا سوق باب الطلاق باب الزواج باب العبادة وسوق لها والضابط ضابط كنا يجمعها من باب واحد ضابطك ومحي باب قراتهم ظهارتهم بكجرها مثلا حديث كان لك دون حقا أيما إهاب دبق فقط طهورا حقو سنو غير ما انت معلن دونا مدجين تمحر هذا ان marka ان مدجين maxaa soo afkeenina مدجينيو اصلنا ما jirtaan jildiga hariga iyo dambaska marka xaal si loo xooriyo dambaska lagu iibgaliyo marka hariga la doonayna la isticmaalo ولا أسل قرية ولا مدقين وردادا مدقين وردادا أوكي رسولك حوري أيما إهابك وحويا وهرقة انت أنا لدبغين إلى الأسليين وحوري دويقة الأسلية فقط ظهور ظاهر بنقضي حديث كان وضابط فقهي كجرا ضابط كم حويا ودوكتهين مارتي ما حدا حوله والله xoolo nijaas ah iyo xoolo aan nijaas ahayn asalka ayga iyo khinsiirku fi fiqh shaafici waa maxay waa nijaas weey okay faraska iyo dameerka iyo geela iyo looduna maxay nijaas ma laakiin hadday iska dhintaan maxaa dhacaya nijaas bay noqonayaan kii nijaasta ahaa faqad qaluda nijaasatu khinsiirkii iyo aygi nijaastiisi waa sii laba laamatay kii aanan nijaas ahayna mutanajis buu noqday نجاس أصلا ما هي محو نقضي ونجاس هو بي أوكي وحان ربا إنان استعماله أم بدقالو استعماله أم باقوري وانا استعماله وإنان الدبقية مركا رسولكم محور أيما إهاب دبق فقط طهور انت باكو هاي سبا إنه ظاهر نقضي رسولكم صلى الله عليه وسلم مركا حديثك محانك قادرنا وضابط فقهي ما قاعده حديثك محي وضابط ما كلمة ما جينيس بايع مشركي waxaad ku xajinaysaa un baabul dahaarada halkaa buu daabit ka yahay muxuuna daabit ka yahay wax wal oo keenaya waa ka u fiirsadaa wax wal oo keenaya in uu jildigu maxaa dhahdaa harigu uu noqdo lagu dibqayo lagu madagayo wuxuu noqonayaa waa maqbuul wixii dee odayaasheenii hore ku samayn jireen iyo waxa iminka lagu sameeyaba wasaaisha isbedelaysa iminka haddii la helo hab kale oo lagu dibqinayo muxuu ku noqonayaa daahir ظاهر بو يو كن نقول إن شاء الله تعالى مركزي إلا يعود لدين كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ وحكستو كعلنية إنه فساده والدباغ يدو معني دون إن شاء الله تعالى مركز لكن أوجدنا حيث أريد طلبات اثنين وأهيد الفرق بين القاعدة الفقهية هي الضابط الفقهي ما أقول حي الضابط فقهية هي قاعدة فقهية قاعدة فقهه الباب ضم وحكش أبواب ضن ضابط كلهم حقلا باب قراته قلا marka haddaad maqashid daabit baa jira arrintaa fiqiga arrintaa maxay xidhaysaa baabka un qaacidaduna kul abwaab ay galaysaa wallahu tacaala aclam wasala ala maxamed wacala alihi wasaxbi jazakum allah khayra